waxaan doonayaa markaan weyna inaan dhakhtarku wuxuu yeelaa bukaanka si uu helo rajo caafimaad. noloshu quruxdeeduna waa rasho, aniguna noloshu ku lama lahay. waxaan rajaynayaa inaan wax barto. rajadana maanta waxay siin karaa bulshada weeyaan ku noolahay. waxyaabo badan baan iska bedeli doonaa haddaan wax barto. nolol horumar leh ayaan wamhiga ku hayaa. gabdhuhu waa inay wax bartaan. waxbarashada faa'iidadeeda lacagul la'aan. habdhaqanku qofka ayay dhistaa, maskaxdayga qofsaa oo soolidayga u qaadaa. gabadha wax barataa waxay ku daraasaa horumarinta bulshada. waxbarashada gabdhaha waa shay muhiim ah, waayo gabadh markay wax barato ummadday u adeegtaa, roogga way dhistaa, aabaheed iyo hooyadeed bay wax tartaa. anna waxaan doonayaa inaan wax lay baro. waxaan doonayaa inay walaashay sideedoo kale ay wax barato. maanta waxaan doonayaa inaan halkan hadal yar uga jeediyo bulshada reer Somaliland, khaasatan waalidiinta carruurta dhashay, hablayeynamaba, macallimiinta iyo cid alle cidii ay khusayso waxbarashada habluhu. tacliinta ay habluhu baranayaan iyo guurka iyo ninka iyo xanaanada carruurtu isma diidayaan. inantu markay wax barato way ka faa'iido badan tahay ninkeeda iyo carruurteeda iyo reerkeeda iyo bulshada iyo waalidiintaba way u faa'iido badan tahay. marka laba isdiidaya maaha baan waalidiinta leeyahay hablaha iskuulada u dira gabdhaha inay wax la baraa.